gudoomiyaha xisbiga UCID mudane Faysal Cali Waraabe ayaa maanta mar warbaahinta la hadlayay sheegay in gudoomiyaha golaha wakiilada Somaliland mudane Baashe Maxamed Faarax uu dhex fadhiyo magaaladiisa oo sida uu hadalka u dhigay una sheegay madaxweyne Deni oo madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland ee Soomaaliya inuu soo eriyo madaxweyne ku-xigeenkiisa ay dhawaan isqabteen isnaaf dhaafeen sidii uu u eriyay gudoomiyihii golaha baarlamaanka ee maamul goboleedka Puntland mudane Faysal Cali Waraabe ayaa sheegay in haddii uu Deni soo eriyo mudane Karaash ay noqon doonto inuu isna ugu yimaado magaalada Hargeysa. mudane Baashe Maxamed Faarax oo ah gudoomiyaha golaha wakiilada Somaliland ayaa u sheegay mudane Faysal Cali Waraabe oo aan hadallada ka fiirsan laguna yaqaano inuu cid eedeeyay isagoo ka fiirsan hadallada uu ku hadlayo ayaa lagu dhaleeceeyaa inuu hadallada qaaf sheego maadaama dadka loo baahan yahay in la isku soo dhaweeyo marna sheega hadalla isu soo dhaweynaya oo dhinac loo qaada la garan yahay. mudane Faysal Cali Waraabe waa gudoomiyaha xisbiga UCID ee Somaliland kaasoo dhowr jeer u tartamay jagada madaxtinimo hase yeeshee laga guuleystay oo uu noqday xisbiga ugu hooseeya xisbiyada fadhiidna ka noqday xisbigaasi. waxaa jirtay waqtiyada ka mid ah oo uu iibiyay xisbigaasi balse uu dib ugu noqday si uu haddana xisbiga u furto isla markaana markay doorashadii soo dhawaatay uu ninkii uu ka iibiyay maxkamadda la galay isla markaana isaga loo xukumay si sharciyana uu ku helay. Faysal Cali Waraabe markaasi wixii ka dambeeyay waxa uu haystay xisbiga UCID oo uu maamulayay ilaa iyo haddana waa gudoomiyaha xisbiga UCID oo xilkiisa hayo. dhowr jeer ayaa la weydiiyay su'aasha ah maadaama aad ku guuldareysatay intaas oo dhan maxaad xisbiga u wareejin lahayd. jawaabta uu bixiyay ayaa ahayd waxaan u laacay cid siyaasadayda ku socota oo qabata xisbigan. haddaba markaasi uu iibiyay waxa uu ka iibiyay Jamaal Cali Xuseen oo aqoon-yahan weyna oo geyga Soomaalida aad looga yaqaano kaasi oo haddana kaga noqday siyaasadda uu sheegaya ma mid aan dadku garanayninba se waa midda deelqaafka ku ah dhammaan ummadda Soomaaliyeed kala fogeynayna ummadda Somaliland. taasi waa mid ayaan daraa taana cid qaadan mayso waananu ka soo horjeednaa xitaa haddii aan wariyaasha nahay waan ka soo horjeednaa arrintan.